Kenya. Soomaalida dalkani Kenya iyo sida ay uga dhex muuqato awoodda dowladani Kenya ee iminka talada haysa ee uu horkacayo ninka la yiraahdo Ruto. Kow, wasiirka difaaca ee dalkani Kenya mudane aadan barre ducaale oo ah muwaadin Soomaaliyeed. Labo, dacwad oogaha guud ee dalkani Kenya mudane Nuurdiin Xaaji oo ah muwaadin Soomaaliyeed asna. waxaan rabaa walaalayaal inaan idinla wadaago arrinta aad dhegaysateen hadda videogan uu nin Soomaali ah soo daayay taasoo uu kaga hadlahayo Soomaalida Kenya iyo eraya uu isticmaalay balse waxaa mudan in la isweydiiyo su'aal inta aan gudaha u sii gelin miyaa jira wax la dhaho Soomaali Kenya wax la dhaho miyuu jiraa hadduuse jiro muxuu kaga ma Soomaali kale ayaa jira haddayse jiraan Soomaaliya kale Soomaaliyaha kale maxay yihiin jawaabta si aanu uga jawaabno waxaa weeye haa wax Soomaali Kenya la dhaho way jirtaa Soomaaliya kalena way jiraan Soomaaliyaha kale ee jira waxaan u qaybin maanta 5 oo ay ku jirta xataa Soomaalida Kenya 5taasi waxay kala yihiin Soomaalida Jamhuuriyadda Soomaaliya Soomaalida Jamhuuriyadda Djibouti Soomaalida magac kasta oo la isticmaalaba haddana waqtigan ahaa ka tirsan Ethiopia iyo Soomaalida ayadana sidoo kale magac kale oo la isticmaalaba ka tirsan Kenya waa 4 Soomaaliya meeshaas ayaan ku sheegay Soomaalidii Jamhuuriyaddii Soomaaliya Soomaalida Jamhuuriyadda Djibouti waa 2 Soomaalida ka tirsan Ethiopia waa 3 Soomaalida ka tirsan Kenya waa 4 midda shanaad maxay tahay waa Soomaalida qurba joogta hadda la dhaho ee u qaxday ama degtay dalalka dibadda ah sida Mareykanka Ingiriiska Australia iyo wixii la mid ah haddaba maadaama uu ku jawaabnay inay jirto Soomaali Kenya Soomaaliya kalena ay jiraan muxuu yahay marka farqiga u dhaxeeya Soomaaliyahan kala bedelan waxaa jawaabteedu noqonaysa markaa 4 Soomaali waa isu dhow yihiin wax badan oo ma dhaxeeyo waa 4 Soomaaliyeed midda shanaad ayaa ka bedelan oo leh khisla qaas ayada ku ah oo kuwa kale ayna lahayn bal 4taa aanu marka hore ku bilownaa isku dhow ee isku midka ah ee waxyaala aas wadaaga 4taasi waxay yihiin saa markii horeba idhi Soomaalida Jamhuuriyaddii Dimuqraadiga ahayd Jamhuuriyaddii Soomaaliya Soomaalida Djibouti Soomaalida Ethiopia iyo Soomaalida Kenya maxay wadaagaan waxay madoogaan mid kastaba inuu yahay dad Soomaali ah dhul Soomaali ah ay Soomaali leedahay degan u jooga dhulku waa dhul Soomaaliyeed kana soo gaadheen ahaanna jiray ka ab ahaan jiray Soomaali oo wax su'aalaha ayna ka taagnayn nidaamka ay ka tirsan yihiin ama iyagu ha doortaan ama ha lagu daro ama meesha ay samaysteen waa kala bedelan yihiin laakiinse waa dad Soomaali ah waa dad dhul Soomaaliyeed degan oo jooga weeye saas ayaa tilmaantaas ugu dhacaysa Soomaalida Jamhuuriyadda Soomaalida Djibouti iyo Soomaalida Ethiopia iyo Soomaalida Kenya marka 2 khislo laba xaalo ayay 4taasi wadaagaan oo midda koowaad waa dad wada Soomaali ah oo dhaladkoodu iyo jinsigoodu iyo dhiigoodu uu Soomaali yahay way wadaagaan middaasi waxaa kaloo ay wadaagaan dhulka ama dalka ay joogaan ay ku nool yihiinna waa dal iyagu ay leeyihiin hababa la wadaagaan hadday rabaan dad kaleete iyaga ayaa u leh aas u leh dhaqan u leh ka ab u leh oo dhulkii hooyo way u tahay Soomaalida Jamhuuriyaddu waa saas ka ab bay u leeyihiin meesha ay joogaan Soomaalida Djibouti waa sidoo kale iyadana ka ab bay u leedahay dhulka ay joogto Soomaalida Ethiopia iyaduna sidoo kale way ka ab ayay u leedahay dhulka ay degan yihiin
soomaalida Kenya sidoo kale waa dhulkeedii ay degan yihiin iyaguna ka abay u leeyihiin waxaa soo hadhay soomaalida shanaad oo ay soomaalida qurbo joogta ah soomaalidaasi hal khislo oo keli ah ayay la wadaagaan afarta Soomaali ee kale hal khislana way kaga bedelan yihiin hal khisla ay la wadaagaan ama hal xaalad bay la wadaagaan halka xaalad ay la wadaagaanba waxay tahay inay Soomaali yihiin dad Soomaali ah dhaladkoodu dhiigoodu iyo abtirkoodu inay dad Soomaali inay yihiin midaal ahaan shakhsiga Soomaaliga ah ee dalka Australia oo kale jooga ama ku dhashay waa Soomaali waa ruux Soomaali ah Soomaalinimadiisa iyo shakhsinimadiisa inuu dhiigiisu Soomaali yahay Soomaali u dhashay uusan wax shiga ka taagnayn laakiin marka Soomaalida kale oo dhan buu la wadaagaa khaasatan afartii Soomaali ee horaan soo sheegnay wuxuu kaga bedelan yahay afarta kale dhulka uu joogo ee uu degan yahay iyo wadankaasi dal Soomaali asalkiisa ma oho dhul Soomaaliyeedna ma oho ay Soomaalidu ka ay u leedahay ma oho waa meel uu qaxooti ahaan u aaday ama socdaal ahaan ku tagay nidaamkiina uu qaatay isku soo duuduubo meesha ay joogaan iyo dalka ay joogaan waa meel dalka asaga ay qaateen oo dalka asaga ayaa qaatay ama waxa la dhaho Ingiriiska lagu dhaho adoption ama korsaday ayaguna ay doorteen inay ka mid noqdaan lagana noqon karo waana dalkaasi ayay u yihiin muwaadin ama waxa la dhaho citizen waa wax la siiyay oo waxay qaateen lagalana noqon karo laakiin Soomaalidan kale meesha ay joogaan ama ha noqoto jamhuuriyadda ama ha noqoto Djibouti jamhuuriyadda Djibouti ama ha noqoto ta Kenya ama ha noqoto ta Ethiopia Soomaalinimadoodaas iyo dhulkooda ay joogaan lagalama noqon karo hal baa laga yaabaa dadku inay isku yar ku wareeraan ama isku khaldaan in la isku dayo in la xaqiijiyo inaad tahay ruux u dhashay meeshan oo aabaha iyo hooyada iyo meeshan ay ku dhasheen oo markaa sharci lagu siiyo lagu dhahaa meeshan aabaha ay u dhasheen way ka bedelan tahay in lagu siin hayo oo lagu leeyahay sharci baa lagu siiyey oo hadda wixii laga bilaabo dalkan ama meeshan u dhaartay Soomaalida Ethiopia ama Soomaalida Kenya ama Soomaalida jamhuuriyadda weyneyd ama Soomaalida jamhuuriyadda Djibouti marka la sugahayo ee sharci la siinayo waa un la xaqiijinayaa inay dad meeshan u dhashay oo ka ab aha la xaqiijinayaa mooyeene lama siin hayo sharci oo lama laho Soomaali lagama dhigayo Soomaalidii jamhuuriyadda weyneyd lagama dhigayo walaa Soomaalidii Djibouti baan laga dhigaynin walaa Soomaalida Ethiopia aan laga dhigaynin ama Soomaalida Kenya ayaan laga dhigaynin waxay xaq u leeyihiin dalab u leeyihiin kali u baahan yihiin in la xaqiijiyo laakiin Soomaalida kale qurbaha jooga dalalka ay sharcigiisa qaateen waa wax la siin hayo way wax lagu manaysanayo wax lagu galaysanayo way lagalana noqon karo sadaraadeed Soomaalidan kale afarta waxay kaga bedelan yihiin Soomaalidan kale Soomaalinimadooda iyo inay wadanka u dhasheen lagalama noqon karo dambi u dhaco oo la ciqaabi iyo waxyaalo kale mooyeene lagalama noqon karo dad dhaqan asalina ay u leeyihiin marka waxaa muhiim aha dadku inay fahmaan marar baad waxaad arkaysaa bari waliba khaasatan ninka siyaasiga ahaa ee siyaasiyadda Kenya ka tirsan ee hadda baxyar kadib aan ka hadli doono videogan uu ka hadlayo aadan barre ducaale ayaa maray madaxweynihii hore ee Soomaaliya isku dhaceen ayaa dad waxaan arkayay social media soo gelinaya sida inuu yahay oo kale nin dalkiisii ku abaal furahaya waxay moodahayaan sida Soomaalida ahaa qurbaha aaday oo kale sida Australia Mareykanka iyo Ingiriiska ama Yurubta kale ama dalalka kale u aaday oo kale moodahayaan aadan barre ducaale in uu ka tagay Soomaaliya oo uu Kenya tagay oo markaa deedna intii sharci la siiyey oo nidaamkii uu halkaa galay oo markaa deedna dalkiisii dib u soo caayayo ama ula dagaalamayo mana oo xaqiiqada ay aad iyo uga fogtahay fikradda noocaas ruuxi aaminsan sababtoo ah aadan barre ducaale wuxuu joogaa siyaasi ka yahay dowladda uu kala qaybsanayaa dhulkiisii hooyo ee ka ab uu ahaa ee isan meel kale oo uu ka yimid ayna jirin ayuu joogaa oo uu maaragtay maamulka la wadaagaya marka uu maamulka jamhuuriyaddii ama siyaasi jamhuuriyadda Soomaaliya ama Soomaali kale meel kale joogta haday isku dhacaan sidii magaalo sidii hadda Gaariso oo kale ay isugu dhici karaan Muqdisho sida isugu dhici karaan Hargeysa sida isugu dhici karaan Jigjiga
say isugu dhici karaan magaalo kasta oo kaleete ayay un fikrad kale bedelan wataan isugu dhaceen mooyeene midka kale ka Soomaalisan ma jiro. hadda xamar oo kale kama Soomaalisano maadaama ay tahay magaalada ugu weyn, magaalada jamhuuriyaddii ugu weyneed ee dhisantay ee Soomaalida, magaalo madaxeeda ha ahaato, haddana kama Soomaalisano Gaarisa, kama Soomaalisano Jigjiga, ama magaalo kasta oo Jabuuti ama Hargeysa kama Soomaalisano. waa magaalo u kaleeto oo Soomaaliyeed, sida shakhsiga jooga Soomaalida Itoobiya ah uusan oga Soomaalina hooseynin ama uusan oga Soomaalisanayn Soomaalida Republic Soomaaliya ama Republika Kenya ama kuwa Soomaalida Itoobiya. marka waa arrin muhiim ah dadku inay ogaadaan oo dadka dhalinyarada ah oo waxbarashadoodu ku dhacay burburka iyo ku dhacay social media iyo dad badan oo Soomaali oo adduunka geeskiisa kale ka kala imaanayso intay aadeen ayaad moodaa in wax u kala cadeeyay uusan jirin oo marka moodahayaan siyaasiyiinta Kenya inay yihiin dad meesha qaxootinimo u aaday sida kuwa Itoobiya oo kale iyagana in moodaan inay meesha qaxooti u aadeen. marka arrintaasi in isaga loola socdo waa arrin aad muhiim u ah. balan dhageysano arrimaha uu ninkan asagana marka aan aaminsanahay inuu ku khaldami doono aan sida ereyga uu isticmaalayo aan isla dhageysano. 3 taliya ku-xigeenka booliiska guud ee dalkani Kenya ahna kusimaha taliyaha booliiska dalkani Kenya Mr. Nuur Gabo ahna muwaadin Soomaaliyeed. 4 agaasimaha guud ee hay-adda dambi baarista dalkani Kenya oo loo yaqaano DCI Mudane Amiin Mohamed ahna muwaadin Soomaaliyeed. 5 afhayeenka madaxtooyada dalkani Kenya Xuseen Maxamed asna waa muwaadin Soomaaliyeed. waxaad u malaysaa Soomaalidu in ay ku leeyihiin halkaasaan rabaa inaan marka halkaa hadda ku istaajiyo oon ka dhaho wax wuxuu isticmaalay mar kasta oo siyaasiyiintaas Soomaalida Kenya markuu ka hadlayay in uu mid kasta uu yiri waa muwaadin Soomaaliyeed. ma aho muwaadin Soomaaliyeed ma aho. muwaadin waxaa loo isticmaalaa ama ereyga citizen oo kale oo wax ruuxu qaato lagalana noqon karo lana siin karo la siiyo. laakiinse waxa ruuxu uu u dhashay ee jinsiga ahaa sida Soomaali oo kale ee saan idin sheegay ilmaha ama shakhsiga ku dhashay Mareykanka ku koray weligii xataa aan arag Soomaali aan arag ama wadankeeda ku soo noqonin waa shakhsi Soomaali ah. Soomaalinimadiisa wax ka qaadi karana ma jirto. Soomaali ah weeye sida ay Soomaalida kale u tahay Soomaali ayay u tahay. ma inuusan sharci Soomaaliya haysanin waa mid kale. ma inuusan ku dhalin ama uusan ku korin ama uu waxyaalo kale oo dhammaan jiri kale Soomaali ahaanta jinsigiisu waa Soomaali weeye. waa qowmiyad ahaan waa Soomaali. ruux kalena kama Soomaalisano. marka tan marka waa inuu dadku ay ogaadaan wuu ku khaldan yahay yarkan inuu dhaho nimankan siyaasiyiinta ah waa muwaadin Soomaali ah sidii ayagoo ay maaragtay jamhuuriyaddii Soomaaliya ay u dhasheen oo macnaha sharci ay ka haystaan dhalasho aha oo markaa deedna intay ku aaday iyagoo sharcigaana haysta Kenya ay aadeen ama ay degaansho intay u raadsadeen ay markaa deedna siyaasaddii halkaa ka galeen sida Soomaali kalaba ay wadamada Kenya iyo Ingiriiska ay maaragtay siyaasadda uga galeen kale. marka arrinta waa arrin muhiim ah weeye oo inuu dhaho waa muwaadin Soomaali ah khalad weeye ma aha muwaadiniin Soomaali ah ee waa ashkhaas Soomaali ah weeye. dadku marka inay saa u kala ogaadaan waa arrin aad iyo aad muhiim u ah weeye oo maaragtay in labada isku khaldan awood muuqata dhanka amniga ee dalkani Kenya ama baa la dhihi karo inta ugu badan laamaha amniga ee dalkani Kenya Soomaalida ayaa gacanta ku hayso. wasiirka difaaca dalkani waa nin Soomaali ah, agaasimaha dambi baarista waa nin Soomaali ah, agaasimaha guud ee dacwad oogaha waa nin Soomaali ah, taliye ku-xigeenka guud ee booliska dalkani Kenya waa nin Soomaali ah. sidoo kale waxaa laga yaabaa hadda inuu noqdo taliye ku-xigeen buuxo ama taliye buuxo isheeg afhayeenkii. marka Soomaalidu dhanka amniga aad baa loogu amaanaa oo runtii yacni awood muuqato ayay ku dhex leedahay Soomaali. waxaan kaloo idan rabaa in hadal ka dhaho midan wuxuu yiri Soomaalida amniga aad ayaa loogu amaanaa. waxaa ka haboonayd inuu haddii uu uga jeedo Soomaalida Kenya inuu saa u cadeeyo sababtoo hadduu Soomaali laaqo oo Soomaali iska dhaho macnaheedu Soomaalidii xataa meel kastoo ay joogta soo galaysa. macnaheedu Soomaalidii jamhuuriyadda baa soo galaysa marka Jabuuti baa soo galaysa.
marka haddii hadda aanu ka hadalno marka dee soomaali abni iyo kala dambayn iyo nidaam hadduu leeyahay aad baa loogu ammaanaa haddii waayahay muxuu yahay waxaa ka jira jamhuuriyaddii soomaaliya oo 30 sano hadda ka badan ay sii ku jiro dowlad la-aan nidaam darri uu ka jiro marka waxaa fiican ruuxu inuu hadalka u dhahayo inuu kala saaro oo uu kala caddeeyo haddii uu u jeedo soomaalida kenya nidaamka nabadgelyada ayay ku fiican yihiin waxaa fiicnad inuu saa u dhaho oo saa maaragtay uu caddeeyo soomaalidu waxaa weeyaan dhanka amniga bal aynu eegno waxay ka yidhaahdeen dadka kenyaanka dalkani u dhashay ee gaalada ah bal waxay ka yidhaahdeen soomaalida xilalkan muhiimka ah loo dhiibay dante contanate wuxuu leeyahay soomaalidu waa dad aad u caqli badan waana sababta buu leeyahay uu u aaminay madaxweynaha dalkani ee ruto dadka horta tanna iyadana bal intaan horta aanan u gudbin macnaheeda ereygan iyo waxa sida loo akhrisan karo waxaan ka dhahayaa wuxuu yiri shakhsigan Somalis are genuine people caqli badan ma uusan dhihin aad u caqli badan ma uusan dhihin genius buu u akhriyaa laga yaabaa inuu mooday inuu yiri genius ma uusan dhihin genuine buu yiri genuine macnaha maxaa weeye waa dad dhab ah macnaha dad aan ahayn been aan ahayn oo kale ama iska dhigdhigin wax aynan ahayn iska dhigin oo kale weeye ayaa la dhahay genuine waxani waa wax dhab ah oo rasmi ah oon been ahayn macnaha Soomaalidu waa dad dhab ah oo shakhsi macnaha dhab ah weeye saas weeye buu yidhina waa Ruto trust system sababta uu madaxweynaha cusub ee Ruto Kenya uu u aaminayaa buu yidhi markaas wuxuu ku soo daray wuxuu yidhi expect Kenya to be dominated by those good people dadka fiican Soomaalida oo ku tilmaamay dad fiican inay yihiin rajeebi ama laga ka suga inay maaragtay dalka ay gacanta ku dhigaan oo kale arrintan iyadana waxaa muhiim ah dadku inay fahmaan ruuxu qaastada qoomiyada kaleeta ah markuu hadalka noocaas oo kale ah oo ammaanid u eg oo in aadan u fasiranin un keli ah inuu ku ammaanayo oo ku farxinay macna kale uu ku hoos jiro ay aad ugu badan tahay kaasoo ah inuu dadka kale iyo dadkiisa u digahayo oo isleeyahay dadkan iska ilaaliya sababtoo bini aadamku dhaqankiisa wuxuu yahay tartan weeye laba ruux hadday yihiin way tartamayaan midba midka kale doonaya caal saaraha inuu ka qaato laba kooxood hadday yihiin sidoo kale waa iska dabeecadda bini'aadanka weeye marka dadkiisii bay u badantay inuu u digayo oo isleeyahay dadkan Soomaalida aha dee maba xumaanba ma oo walaalaheen baa laga inay yihiin laakiinse waa dad kale oo inaga bedelan dee amay dalkan gacanta ku dhigahayaan oo ay aqlabiyadda ay yeelanayaan macnaha maamulka gacanta ku dhigahayaan marka nooc digmid ah inay tahay marka adiga ha u fasiran inuu keli uhun inuu ku ammaanahayo oo isku leeyahay waa nin fiican oo aad haysan oo dalkana gacanta ku dhigi doona ee aanu u diyaar garowna oon caawidno oon u sacabayno macnaheedu ma oho marka inaad la socoto oo fahanto hadalka saad u fasiranayso u qaadanayso ma uhun intii lagu ammaano inaad kala badbadato ood u aragto in macnaha lagu ammaanahayo oo la sheegahayo la iska sheegahayo uun wanaagaagi ma aha digitaan u fiirso aydan inay ku jirto waana aaminsanahay inay tahay hadalka meesha hadda ku jira Soomaaliyeed waxaana ka rajaynaynaa buu leeyahay aan ku qabnaa rajo ah inayba ayagu noqdaan kuwa dalkani maamula dadkaasi waa dadka Soomaalida ayuu ka wadaay Master Njenga wuxuu leeyahay marka la eego ama loo eego daacadnimada iyo sharafka dadka muslimiinta way ka sareeyaan annaga inteena kale way naga sareeyaan buu leeyahay tanna iyadana waa sidoo kale ta weeye ninkaasna wuxuu yidhi xagga markii loo fiiriyay yidhi integrity-ga ama maaragtay shakhsiyadda ama maaragtay akhlaaqda dadka muslimiinta ahaa buu yidhi waa runtii siduu u fasira oo kale weeye way inaga sareeyaan ayuu yidhi tii oo kale marka iyadana loo qaato digitaan macnaheedu inay tahay aan lagu fasiranayaa ma inaynan ahayn un in uu ina ammaanahayo oo weliba khaasatan markuu isticmaalo ruuxu dadka muslimiinta ah sababtoo hadduusan muslim asagu ahayn asaa uu arko muslimiintu inay integrity ay leeyihiin iyo kana sareeyaan dadkiisa su-aasha meesha ku jirta waxay tahay muxuu u noqon layaa muslim uu qaato muslimnimada mararka qaarkood waxaa loo baahan yahay dadku inay u fiirsadaan hadalka sida loo yidhi waanan maaragtay aadan iska noqonin un ruux iska haya raacaha hadalka korkiisa un maaragtay waxa la dhaho superficialka ahaa kaliya raacaya oo between the line aan akrinaynin
markay noqoto xagga sharafka iyo daacadnimada wuxuu leeyahay muslimiintu annaga inteena kale way ka wanaagsan yihiin. Elijah Arab Kaoj wuxuu leeyahay waan ku kalsoonahay walaalaha muslimiinta ah marka ay timaado in xaqa loo istaago oo waxaa weeyaan muslimiintu waxa xaqana way garanayaan waxa baatilkana way garanayaan si waafaqsan sharciga ayayna ku xukmiyaan ama ay ku kala xukmiyaan xaqa iyo baatilka. tanna sidoo kale weeye way iyadana halkii baa sii soconaysaa hadalkii ahaa in ay digitaan wax ku jirta meeshan laga dhahayo. wuxuu yiri ninkan markii xagga ruuxdooda ama jiritaankooda mujtamaca muslimiinta markii loo fiiriyo waxay si adag oo maaragtay firm aha oo muuqata ay maaragtay u istaagaan buu yiri waxay sax aha iyo waxa khaldan ay uga hor istaagaan. waxaan kaloo ruux baad moodaa inuuna ka hadlahayo. wuxuu yidhi my he performance constitutionally inuu waxaan rajaynayaa macnaha inuu sharciga waxaa laga inuu ka hadlahayo wasiirka difaaca ee cusub. waxaan rajaynayaa inuu sharci taasaa ku tusaysa arrintu sida laga dhigahayo aad u malaynayso inayna ahayn arrin in wada ammaan aha ee ay ku jirto digitaan dadkiisa iyo loo digayo oo laleeyahay dadkan aan ka fiirsanno yaynan maaragtay aan la soconayso. sababta wuxuu yidhi my he performance perform baan u malayn uga jeedo constitutionally waxaan rajaynayaa inuu sharciga raaco macnaha oo uu macnaheedu uusan inagu xadgudbin oo uusan kasoo qaad militariga uu madaxda u yahay sida maadaama wasiirka difaaca yahay si kale uu isticmaalo oo kaleetay laga loo fasiran karaa ama ay ku kala xukmiyaan xaqa iyo baatilka. Prince Austin Japan wuxuu yiri hal mid waynu wada ognahay ama waa inaad ogaataan Soomaalidu ma ahan dad maasuq waayo buu yiri diintooda waa diinta Islaamka ayaa ka soo horjeedo waxa loo yaqaano maasuq ah. tanna aan halkii imay ka soconaysaa. waxaa su-aasha mudan waxaa weeye haddii aanu hadda raacayno aanu leenahay Soomaalidu maasuq ma laho macnaha Soomaalida Kenya iyo haddana sidoo kale uga jeedaa oo khaas ay ku tahay arrintaasi oo ay naftigeeda calaamad su-aal weyn ay saaran tahay oo jirto mise Soomaali oo dhan buu leeyahay. haddii Soomaali oo dhan uu leeyahay dee khaasatan Soomaaliya maanta 30 sano u dambeysay burburka ka jira iyo qaska ka jira iyo waxa ka jira meeshii ugu weyneyd ee lagu hiranayay muxuu yahay hadduusan ku salaysnayn musuq maasuq iyo khaa'inimo iyo khayaano iyo dulmi iyo dadka oo la laayo oo xaqdaro lagu dilo. marka inuu ruuxu uu dhaho wax ruux yidhi inaad maaragtay sidii korkiisa isaga muuqaalkiisa isaga qaadato waa arrimihii hadda aan ka hadlahay oo kale la mid tahay inuu macnaha dhaho saas ayuu leeyahay. marka waxaanan moodo inuu kuwa yarkan ku waafaqayo. waxaa kaloo uu ku sii daray diintooda ayaa arrinta u diidaysa oo kasoo horjeeda. haddii waa yahay maanta muslimku haddaanan Soomaaliya iska ilowno miyuu xaaladda uu ku sugan yahay ku sugnaan lahaa haddii diinka la raacayo oo lagu dhaqmahayo. marka maxay tahay sheekada meesha marka la leeyahay ruuxani muxuu doonayaa inuu dhaho muslimiintu diinka way ku dhaqmaan hadday ku dhaqmaan ayay noogu fiicnaan lahayd. wuxuu leeyahay waa inaad ogaataan ama waynu wada ognahay waxaa weeyaan Soomaalidu ma aha dad ku dhaqma maasuq ah waayo waa dad muslimiin oo diintooda ayaa u diidaysa inay ku dhaqmaan maasuqa. walaalayaal intani waa in yar oo aan ka soo qaatay. waxaan rabaa marka inaan in yar ku gabagabeeyo. waa midaan ahaa markaad maqasho siyaasi Soomaalida Kenya ah sida Aadan Barre Ducaale oo kale inaadan suuraysanin shakhsi u aha muwaadin jamhuuriyaddii Soomaaliya oo somehow qaxootinimo ama maaragtay ku tegay dalka daris ah oo Kenya la dhaho oo markaasi haddii uu ka soo horjeeso danta jamhuuriyadda inuu dantii Soomaalida ka soo horjeedo dantiisii iyo meesha uu deganaa iyo tuuladiisii magaaladiisii xaafadiisii waxa uu tiraahdo unbuu ka hadlahayaa. waana meeshii awowyadii ka ab ay lahaayeen weeye. lismana soo barbardhigi karo Soomaali kale oo intuu u qaxootiyoobay ama u qaxay dibadaha nidaamka qayb la noqday lama soo barbardhigi karo sababtoo ah meesha uu Aadan Barre Ducaale iyo siyaasiyiinta kaleba ay joogaan
waa dhulkoodii hooyo weeye waa dhulkoodii hooyo bay joogaan aynan wax kale ruux kalena u daba fadhiyin waa gurigoodii weeye meesha ay wax ka qabanhayaan u dagaalamahayaan ama ha la dagaalamaan Soomaali kaleete ama ha la dagaalamaan ama ha noqdo ficil dagaalka waxaan uga jeedaa ficil oo kale ama khilaaf ama Soomaali kale ha noqoto ama dad kale ha noqoto gurigoodii weeye waxa ay u dagaalamayaan ay maaragtay soo istaagayaan marka ha u sawiranin ruux sida annagoo kale dadka nagadiibaha qurbaha jooga oo markaa deedna Soomaaliya la dhihi karo haddii ay isku dhacaan ama ay wadankii ay qaateen ay ooga saftaan Soomaaliya la dhihi karo dalkaagii hooyo ayaad oogala safatay dal kaleete oo iska ku meel gaar ah oo laga yaababa inay ku soo cayriyaan aadan barre ducaaliye wixii la mid ahaa xaaladaas kale kuma sugno horta mid waa inaad ogaataan arrinta kale aan raba inaan dadka ku baraarujiyo waxay tahay yarkan wuxuu aad ugu celceliyey in Soomaalidu ay jagooyinkan muhiimka ah loo dhiibay inay lagu og yahay cadaaladnimada inay tahay diintooda inay tahay inuu madaxweynuhu ku kalsoon yahay arrintu saas ma waa xaqiiqa inay Soomaalidu karti leedahay inay karti loogu dhiibay ragga iyo gabdhaba jagooyinka loo dhiibay laakiinse waxaa xaqiiqo oo mudan in la ogaado saddex xaalo ayaa Soomaalida Kenya ay doorkoodu iyo sida loola dhaqmo ama wadankan uga qabtaan oo isbedel weyn ka dhacay saddexdaa xaaladoodba xaalado waxay ahaayeen غayru caadi ah oo waxyaalo ka dhacaya dalka gudihiisii ay sababtay in ayaga fursad ay helaan markaa fursad la siiyo dhab aha oo doorkooda dhabta ah ay ka ciyaaraan midkii ugu horeeyay wuxuu ahaa waxaan malaynayaa inuu 700 meelahaas inuu habar malaynayaa waxay ahayd marka uu noqday taliyaha ama hogaamiyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee wadanka Kenya ninka la dhaho General Maxamuud Barrow ninkaas uu noqday muxuu ahna soo ku noqday madaxweynihii waqtigaa joogay Daniel Arap Moi hadda ku dhintaan maranaya ayaa la afgabiyey ciidamadii qalabka siday ee wadanka Kenya ayaa talada la wareegay afgambi sameeyey intay qabsadeen radioga yirina taladii waan la wareegnay ciidamada ayaa qabsaday Maxamuud Barrow General Maxamuud Barrow oo markaa aan ciidamada haysanin sargaal saro oo kala meelahaas kale inuu ahaa laakiin si aan madaxda ugu soo sareysa ahayn ayaa sida la sheegay ka codsaday madaxweynihii iyo madaxdii kale ee ciidanka ee sare in arrintan asaga haddii loo ogolaado uu tallaabo ka qaban karo oo arrintan uu soo afjari karo isagoo sida la sheegay rajo weyn loo qabin ayaa waxaa la yidhi haye waa yahay isku day haddaad u malaynayso inaad soo afjari karto anoo waxba sii gelinin waxyaalihii uu isticmaalay iyo siduu isticmaalay tekniikyada waxbaa maqmaqlay oo barbaan ka yar maqlay laakiin ma sii gelahaye xaasilkii waxay noqotay inuu afgambigii soo afjaray oo ciidamo commandosa oo uu isagu watay intay u dhaceen radiogii ay qabteen nimankii xerada radioga joogay macnaha radioga Kenya haystay ee dadka la hadlayay oo ayagii qabtay kadibna madaxweynihii oo meel dalka magaalada ka baxsan magaalada joogay intuu u tagay soo qaaday oo markaa isla wax yar kadib lagu dhawaaqay in uu afgambigii dhicisoobay oo ciidamada qalabka siga ay arrintii dhiciseeyeen wadankiina uu ku soo noqday madaxweynihii gacantiisii madaxweynihii marka wuxuu ugu abaalmariyey in uu markii koobaad loo dhiibo shakhsi Soomaali ahaa General Maxamuud Barrow loo dhiibo uu noqdo taliyaha guud ee ciidamada Kenya arrintan marka maxay u ahayd oo laga akhrisan karaa qoomiyadaha inta badan isku dhinaca ah ama ha noqoto xagga diinta ama xagga dhaqanka ama xagga muuqaalka Kenya ugu badan markay isku dhaceen oo ay kala shakiyeen oo ayaa waxaa fursad la siiyey Soomaalidii ayaga oo markaa laga yaaban yahay in ay arrintu gacanta ka sii baxdo oo dagaal dhexdhexaad oo civil war oo kale u dhaco taasoo Soomaalida macnaha say u dhici lahaydna ay ahayd haddii markaa asaga ah uu madaxweynuhu ka soo qaad uu taliyaha ciidamada ka dhigo mid qoomiyadiisa ama qoladiisa ama kuwa kale gacan saar kala aha inay kuwa kale u fasirtaan in laga aana gudanayo oo markaasi ay arrintii iyo qalaadii iyo ay sii socoto wayna dalku uusan degin haddii uu dhaho kuwa aha si aan u dejiyo oo aynan ugu malaynin inaan ka aana gudanayo ayaan ciidamada u dhiibina haddee kalsooni darri baa ku jirto marka horeba ayaga ayaa ka timid in markaa ciidamadii uu haddana amar diidaan
yuu ka cabsanayay marka sida ugu habboonad waxay noqotay oo moodida in lagu guulaystay inay wadho meel qola dhexdhexaad ah oon labadan qabiil ee xooga badan ee kuwa ishaya aha aan mid noolna ahayn kenyaanna aha kartina u leh inay loo dhiibo meeshan si marka labadii dhinacba ay u dareemaan kalsooni midaasi midii koowaad bay ahayd waxay sababtay sida la ogyahay taariikh ahaan inay Soomaalidu waliba ciidamada qalabka jira ay aad u gasho tii labaad waxay ahayd 2007 markii doorasho ay dhacday doorashadaas oo la isku qabtay qolada ku raysay shacabkiina ay isku dhaceen oo dad badan la laayay waan ognahay xataa madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta iyo ninka hadda madaxweynaha noqday labadoodaba in lagu soo eedeeyay inay qayb ka ahaayeen dadka kicintooda arrintaasi oo maxkamadda Hague xataa mar la yiri waa la insaarayaa waqtiga asaga dawladdii dhalatay waxaa iyadana ka dhalatay in shaki weyn oo soo kala dhaxmaray qowmiyadaha waaweyn sidaan sheegay dhaqan ahaan diin ahaan iyo dhinaca kaleba isu dhow ayaga inay kala shakiyeen tii oo markaasaan sheegay haddii ay qolada doorashada ku guuleysatay Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ninkii maxaa la jiray William Ruto oo kale haddii dadkoodu ayagoo ay wataan ee kooxdooda ah ay u dhiibaan jagooyinka muhiimka oo dhan inay kuwa kale u arkaan in laga aana gudanhayo xataa iyagoon laga aana gudanaynin maadaama shaki jiro inay dhahaan waxaa maaragtay sidan la iigu sameeyey waa aana gudasho darteed weeye si arrintaa meesha uga baxdo ayaa waxaan ognahay jagooyinkii muhiimka ahaa sida wasiirka difaaca Yusuf Xaaji Allah u naxariisada uu dhintay yaa noqday wasiirka difaaca waxaa kaloo isna muddo gaaban uu ahaa saan aaminsanahay wasiirka nabadgelyada uu ahaa internal security oo kale marka ama nabadgelyada oo kale tii asagana ahaa waxaa kaloo iyadana si toos u xusuustaa in uu wiil Soomaali ah Soomaalida Kenya ah loo dhiibay inuu ahaa hogaamiyaha ama gudoomiyaha guddiga doorashada iyo xuduudaha asagana marka waalahana meelaha xasaasiga ayaa ahayd waxa marka taa suurta gelisay markii isku dhaca u dhacay in marka noqotay Soomaalidu qolada kali ah ee kartina u leh waxan qabanna karta dhexdhexaadkana loo arko inay u yihiin qowmiyadahan marka iyaga xoog badnaa isku hayay midda saddexaad waa midda hadda aan ka hadlayno ee isbedel aad u weyn u dhacay runtii iyada oo mid kalena aan rabaa inaan hoosta ka xariiqo Soomaalidu ooguma ina codaynin sida la sheegayo madaxweynaha hadda la doortay ururkiisa ama dadka la soo doortay ee baarlamaanka loo soo doortay intooda badan umayna codaynin dad aad u yar ayaa ururkiisa lagu soo doortay oo uu ka mid yahay Aadan Barre Ducaale oo maaragtay asaga dadkii ka dhaqaaqi waaye ahaa inkastoo ay taa dhacday haddana Soomaalida saan sheegaynay waa waqtigii ugu badnaayeen ee jagooyinka waliba xasaasiga ah ee muhiimka ugu badan ee loo dhibay asagoo horaanba uu sii hayay dambi oogaha guud ee waddanka Kenya ama DPP uu Nuruddin Xaaji uu ahaa asagoo oo haddana uu noqday laga dhigay dambi baaraha guud oo asna Soomaali laga dhigay ku-xigeenka ciidamada booliska ku-xigeenkiisu asna uu Soomaali yahay waxaa kaloo iyadana jirta maxkamadda sare xataa ay ku jiraan 2 miya mise 1 baa ku jira ayaa haddana waxaa lagu sii daray oo haddana la sameeyey wasiirka difaaca ee Kenya ayaa wuxuu noqday Aadan Barre Ducaale waxaa marka meesha ku jira iyadana haddaba waxaa ku jirta iyadana oo cad weeye markii koobaad si cad isu bedelay waddanka Australia ee waddanka cafwan Kenya laba qoys ayaa muddo dheer isku cayrsanaysay maamulka dalkan intii xorriyadda qaatay 60 sano miya 70 sano meelahaas kale ay maraysaa malaha 60kii madaxweynihii ugu horreeyay wuxuu ahaa Kenyatta nin ay la tartamayay in badan aakhirkiina ay arrintii ku soo wareegtay wiilashoodii Uhuru Kenyatta ee hadda ahaa ninkii 10 sano u dambeysay hayay talada ninkii la tartamayay Raila Odinga waxa asna ahaa walaal waxa weeye waa wiilkii ninkii aabihii la soo tartami jiray arrintii markay uu 10 sano ninkan hayay oo waliba William Ruto-na uu ku xigeen u ahaa ruux walbana u arkayay inuu asaga markay ka dhamaato labada team ama labada koor ee la soo dooran karo 5 sano iyo 5 sano ah inuu ninkan taageeri doono oo dhigi doono hala doorto ayaa wuxuu Uhuru Kenyatta isku dayay inuu soo nooleeyo tartankii labada qoys ahaa oo uu taageero oo uu ku siiyo abaal uguma siiyo maadaama asagoo ka baxayo ninkii aabihii la soo tartami jiray markastaba asagana hadda la soo tartamay ee uu markastaba ka reeyay
waxa weeye ninka la dhaho Raila Odinga. taas waxaa hor istaagay sacad ninkii markaa asaga ku-xigeenka u ahaa rajaynayana asaganta inuu dhaxlo oo ah William Ruto oo runtii arrin in la sheegaa u baahan weeye aadan barre ducaalana uu dowr aad u weyn ka ciyaaray xataa uu u berdereeyey shaqadiisii aadka muhiimka u ahayd ee uu aqlabiyadda baarlamaanka uu ahaa gacanta ku hayay taageeradii uu u muujiyey ee caddayd ee William Ruto uu u muujiyey ayaa sababtay in jagada laga qaado marar badanna u hadlay si cad uu ugu hadlay oo u taageeray William Ruto arrintaa marka waxay ka dhalatay in isbeddel uu dhaco waxa la dhaho change of the guard waxa la lagu dhaho macnaha waxa weeye qowmiyadihii ama qoladii isku waday inay iyagu dhaxal u leeyihiin ama ay yihiin dadkan asalka u leh maamulka qoladii Kenyatta iyo qoyskiisa inay waqtigu ka dhamaaday oo uu ka baxay kii kale uu rabay inuu ku wareejiyana iyadana ay socon weyday ujeedadu waxay daba noqotee arrinta marka waxaa dhacday in doorashadii markay dhacday ay si lama filaan ah William Ruto ugu guuleystay taabase kuma istaagina in haddana maxkamad la codsaday oo lidii waxbaa la khiyaamay la yiri laakiinse maxkamadiina ay u xukuntay meesha marka waxaa ka dhashay haddana waxa la dhaho distrust ama kalsooni darro aad u weyn oo soo dhex gashay qowmiyadihii waaweynaa soo dhex gasheen haddana mar labaad ama mar saddexaad taas marka waxay ka dhalatay in uu haddana dib loogu noqdo arrintii labadii koore horeba lagu soo guuleystay ee ahayd in haddana jagooyinka xasaasiga ah ee loo dhiibo Soomaalida oo saan sheegnay kartideeda leh ruuxna ma laho aadan barre ducaale kartida ama ku habboonida wasiirka difaaca ama baarlamaanka dhan maamuli jiray ma aho Nuruddin Horaan buu asagoo ahaay dambi oogaha guud ma aho waa nin loo yara xeer ilaaliya sharci aqoonaha oo aad iyo aad levelkiisu weliba lagu tilmaami karo un caalamka maaragtay weliba horumaray oo kale ayuu levelkiisu gaarsan yahay markaad aragto sida uu u hadlahayo iyo maaragtay luuqadiisu levelka ay gaarsantahay uu u fahmayo macnaha sharciga sidoo kale in dambi baaraha isna uu noqdo Soomaali booliska oo hadda ku-xigeenka weeye laakiinse asaga hadda maba joogaa la yiri waa uu xanuunsaday ninkii booliska hogaaminaya asaga ayaa hadda ah si rasmi ah ruuxa u hogaaminaya taas waxay hadana sababtay in marka mar saddexaad haddana ama labaad waxa tirahdaba haddana Soomaalida eelihii muhiimka ee xasaasiga loo dhiibo si qowmiyadaha ayna u kala shakin waxaan meesha ku tusaysaa waxaan u dhihi lahaa ma oho ama aamisani inay tahay un xigmad shacabka Kenyaatiga ka imaanaysa kaliya inkastoo iyagu ku jiro laakiin waxaa jira quwado kale oo caawin haya oo la talin haya oo markii kalsooni aad u hooseysa ay dhacdo khaasatan quwadaha shacabka isu balance isu dheelitirmi kara ay iska hor yimaadaan in xal lala yimaado labadoodaba u aha waxay aqbali karaan arrin aad iyo aad muhiim ah oo markaa inay ku jiraan dowlado kale oo danaynaya Kenya ayaa meesha aan iga muuqato ku arkayaa laakiinse waxay u tahay si dadban faa'iidadii Soomaalida kali uma oo inay shaqada qaban hayaane nidaamkii ayay ku baran hayaan runtii wax aad iyo aad muhiim ah weeye meesha ay maanta Soomaalidu ka gaarayso waxa la dhaho khibradda iyo maturity-ga ay ka baran hayaan wax la qiyaasi kara ma oho marka maxaan uga jeedaa waxaas oo dhan waxaan uga jeedaa ma oho in aad istiraahdo waxa sagooyinkan la igu dhiibay wax kale oo qabtaa la waayay ama aniga la igu kalsoon yahay ama aniga daacad aha sheeka baralay aan meel la gaarsiisanayn inaad maaragtay aad waqtiga iskaga disho oodan fahansanayn arrinta dhabta ah ee ka dambaysa oo haddaadan fahansanayn macnaheeda weeye fursadan ka faa'iidaysan maysid waa fursad dahabi ah waxa dhaho kala weeye oo sababo jira dartood u timid haddaba markaad og tahay inay sababahaasi jiraan arrimaha keenana ay yihiin waxaa aad ugu dhowday marka inaad ka faa'iidaysato ood siaad u hanan lahayd saad u tusi lahayd qowmiyadihii marka horeba kugu aaminay ee adiga kaa dhigtay dhexdhexaadka inaad tusto arrintaasi inay tahay arrin aad ku fiican tahay aad ka soo bixi karto aadna ka soo baxday si ay u soo noqnoqoto oo inay maaragtay u noqonin ayaga marka haddana inay dhahaan maaragtay oo adigiina uun shaki kaa imaanin laleeyahay qoladan waxaa laga yaabaa si kastaba u yar yihiin inay iyaga naftigooda arrintan ku xadgudbaan baa laga yaabaa inay u noqonin laakiinse haddaad un tiraahdo sida aayaddii qur-aankeeda oo kaleete ninkii labadii nin ee isqabtay beerta oo kale ee yiri sharaf aan adigu leeyahay iyo caqli iyo xigmad aan leeyahay ayuu maaragtay ilaahay beertayda
u soo dhaliyo sidan ooga dhigay taadana uu baabi'iyo oo kale inaadan dhihin ya waa arrin aad muhiim ah wey waxaana ka dareemayaa arrintaa mar horena waan maqlay dad saas ugu celcelinaya arrintu marka taas weeye ha la ogaado ha lala socdo inta ayaan kusoo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu